السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد التحية ما أنت وحارة أن كهذا موضوع كوفسيكا كصوبة برشدينا كوفسيكا محاكينو سيدي لو قد بكرا أما لو حكم من كرا أنت إن رمانتا إن الموضوع عني كل فقرو هدو له يراهدو daqiiqadaha soo socdo waxaan rabaa inaan kula fakuro mowduucan iyo intii ilaahay iga fahansiiyo inaan ka dhaho ordo aan ogahay inaan aniga xogow saas usii cilmi badneen laakiin haddana wixii aniga fikradeyda ahi inaan ka dhibto qof waliba wuxuu xor u yahay inuu fikradiisa ka dhibto soo markay laakiin qof waliba xor uma ahan inuu wax khaldani uu qof kale ku taageero marka waan soo laaban doonaa daqiiqad yar kadib hadduu la yiraahdo. اوكي بوساس معك خويه دي تكتيت دكانة قدرها معاك قدم على دكان قاعد قداسي تقف قدايم على واي عير بوساس ادو افكوت Welcome back guys, waan soo laabanay. Marka horta kufsiga markaan dhahno bulshadeen horta waa wax horta magaca ereyga kufsi waa wax aad iyo aad u falxun markaad egto generationka hadda jooga. yacni kufsi ma dhihi karno waxani ani ahaan waxani kufsi ma dhihi karo waa ka badbadis waa hin ka badbadis inta hadda last year hadda sanadkii na dhaafay 2019kii inta gabar la kufsaday ama la dilay أول واحد يجي حتى إنت اللي دلوه حتى على الجرجرة هذا المحل مروة إنت لو كسرته عند الطبقة على صوت ولا مروة مركة قدام ماذا قار مكافير هذا هند جوجا مكافير سو قصدي قدام بس أكاد على وحي أحد نيم با وحي كفسدين جبر مركة كفسدين يا مركة نيم با مركة جبر ده مركة صاشر قولي نين جبر صاشر قولي yaa gabadha la kufsaday walaalkeed ayaa wuxuu ugaarsaday ninkii falkan ka dambeeyay ayuu ugaarsaday nimankay intaa la soo xirin ka horbo walaalkeed ayaa wuxuu keenay ninkii falkan kufsiga ka dambeeyay oo soo awaabul dhan wuxuu keenay qortiisa oo la wado ayuu keenay oo booliska hor keenay nimankii la raadinaya ninkii waxaan sameeyay soo abaabulay oo falka ka dambeeyay oo qortiisa laakiin halkaas intuu soo qalay soo biriyay iyo qortiisa wuxuu keenay xarunta booliska keenay taasi markaa fiiriso waa khalad ku dar laakiin handalo qalbigaada kuma qancayo in walaasha nin kufsaday adduunyada uu sii joogo kuma qancayo qof maanta nin rag ah oo damiir leh ku qancayo ma jirto walaasha ninkii kufsaday in maxay ahaaday uu adduun sii joogo qof ku qancaysa ma lahan handaladeeda kale dhalinyaradu kufsigu saan wuu ka yaraa u fiirso magaalada ay ka yacni horumarsan tahay way ka kufsi badan tahay magaalada ay ka horumarsan tahay way ka kufsi badan tahay Puntland fiir wax ka dhacay Muqdisho fiir wax ka dhacay waa meelaha yacni ugu heeday horumarsan waan arta qof dhan alla jarjarooya marka waxani aan u kala qaadno laba shay mid yacni wax iska caadi qofka wax yacni maxay ahaday caadi ah oo qofkani qof damiir lahi ma sameynay waxan qofka aan damiirka lahayn laakiin uu sameynaya maxaa ka mid ah adiga hadda in daawanayo ma ogoshahay in walaasha yacni aad kufsato ma ogoshahay maya qof ogol ma jiro soo marka sidaas la mid ah qofkan aad xoogayso ma aad kufsanayso nin bay la dhaltay aabbaa dhalay lagu soo tacabeelay kharash baa laga dhiibay hadda gabadha la kufsoo sheegaya waxaa la sheeganaya inay jaamacad dhiganaysay okay qiyaas gabadhaas jaamacadda dhiganayso Somalia is not free educationka it's not free wax walba waa lacag ma garad halka door uu aabahaasi gabadhiisu ka bixinaya ama basraaca ka soo dhigatay soo ku helay alla og
isu ku keenay. Walaalkeed waxaa laga yaabaa in yacni maxay ahayd waxbarashada uu ka tegay ayada darteed oo ka tegay si yacni walaasha mustaqbal u samaysato. Marka waxaan aniga markaan fiirfiiriyey oon khulaaseeyey oon baaray waxaa ii soo baxday dhowr arrimood. Markaad fiiriso hadda yacni muqdisho markaad fiiriso waxbarashadeeda, aniga waxaan indhahayga ku arkay arday dhan oo iskuul loo soo diray oo yacni drugs ku wadata boorsada, drugs ku wataan boorsada. Isugalaas baan ahayn ardaydaasi drugs bay ku wateen boorsada, halkay ku wadan lahayn bugaag iyo qalimaan ee meesha u imaan lahayn waxbarasho. Break marka loo baxo waa la baxayaa, banaanka la tegayaa, afkaa la gashanaya daabuu iyo wax daran, ma garad. So marka arday halkaas ka bilaabay sheekada markuu jaamacad gaar maxaa malinaysaa marka waxaanoo dhani waa qofka sameynayo qof yacni caqligiisii uu jooga ma ahan. waa qof yacni maxay ahayday suu dawo u cunaayay heerkaas gaaray. Qofkan waa dareemi kartaa markuusan caqli lahayn oo uu maxay ahayday uu isticmaalo drugs, uu isticmaalayo qalbigiisa ma joogo. Marka qof aan qalbigiisa joogine ama miirkiisa joogine wuxuu rabo ku kacayaa, wax uu rabo ayuu ku kacayaa. Marka adiga iskuulkii ardaydii aan isku galaaska ahayn waxaan arkay xataa maxay ahayday maalin maalmaha ka mid ah taariikhdii igu laabka badan ayaa waxay ahayd maalin waxaan u malaynaa inay Arbaco ahayd. Xiisadda u dambeysay yaa macalinka nagu lahaa ayaa maqnaa oo 2014 2013 meelahaas ahayd. waxaan arkay asxaabti marka xiisaddii macalinka nagu lahaa ma joogin, marka waana la fasaxay. Markii la fasaxay yaa salaxyada ka mid ah oo ku yaalo Muqdisho ayaanu tagnay. Hadda ma rabo inaan si specific aan u sheego meesha. Markaan tagnay yaa marka dhalinyaradii ama gruubkanagii ahayn galaaska ahayn yaa waxaanu balansanay gruub kala balansanay inaanu kubadda dheelno. Bas gruubkii kale way noo imaadeen, waana 5 saac oo maalinimo salaxan waa dareemi kartaa. Bas si loo dheelaa 1 o'clock markay tahay yaa waxaa aragnay arday ka mid ah ardaydii galaaska ila dhiganaysa oo waxaan arkay cagihiisii yacni inay go-aan wax yar u dhimanto, inay go-aan wax yar ba u dhiman tahay, wax yar yaa u dhiman inaga go-aan because of drugs ogis, ma garat. Xitoo kale waxaa kaloo ka mid ah shiishada, waxyaaba badan oo la isticmaalo. Shiishada ayadana markaad barato marka dambe kuwa yacni wadada weyn bay ku wurataa, ma garat. Drugs maxaa laga bilaabaa? Sigaar, maxaa laga bilaabaa? Tobacco, maxaa laga bilaabaa ilaa marka dambe aad gaadho waaweynka jirarka aad noqoto, ma garat. aad noqoto high level yacni professional drugs inaa marka dambe noqoto, ma garat. Wadankeena anaga waxaan ka yaabanahay inuu noqdo sida Mexico camal oo kale, inuu noqdo ayaan ka yaabanahay. xashiis qurun bakti dhalinyarada way isticmaaleysaa, mana arkaysid maxay ahayday qof ka wacyigelinayo. Xashiishkan waxaanu leeyahay markas qof ka wacyigelinayo. Marka kufsiga wuu sii badanaya haddaan intaan aan laga xakameynin oo drugska farada badan la isticmaalayo, aan maxay ahayday aan la xadidin. Haddana dhibkaas oo dhan waxaa qayb ka ah hooyooyinka ama aabayaasha Soomaaliyeed ayaa qayb ka ah. Qofkani waa dareemi kartaa inuu wax isticmaalin. Dhalinyarada Muqdisho qaar waxaan aqaanaa aan qorraxda arkinba, qorraxda ay isma arkaan, habeenkii ay shaqaystaan. Maxay ka shaqaystaan? Bakti iyo wax jinni ay ka shaqaystaan. Saa ay tahay hooyooyinka aabahood hooyooyinka iyo aabayaashii ma weydiinayaan qofkan wuxuu qabto, kuma mashquulayaan wiilkooda. Haddana taasi waxay ahayd wiilashan tan gabdhaha
gabarey adigu horta calafkaada ayaa qabtaa. ninkii ku guursan lahaa ilaahay marra kuu qoray, ilaahay ayaa marra kuu qoray. haddana teda kale 2 erey ama 3 erey oo lagu dhahaane wax macno ma sameynayso. adiga laakiin sharaftaadii, sharaftii waalidka, sharafta aabbayaasha, sharafta awowayaasha iyo tii abshaxankaa waad ku dheeshay. xitaa taana xataa waa ku dheeshay, ma garad. waa adiga daawanaya gabadha sideed yacni ugu aamintay naftaada inaad yacni nin maxaa ahayd aad hotel ugu tagto. xaafadiina wuu ku imaan karaa, waa sax. meel public ugu kuli kartaan, sax. laakiin meel private ahay sidee kaga suurta gashay? raggii rag ahaa haa way jiraan, raggii rag ahaayo waagii hore ragga wanaagsanaayen way jirtaa, oo dumarku madaxa dadka u saarnaayeen, ragga madaxa u saarnaayeen, oo dumar la caaya ma jirin, dumar la dila ma jirin, dumar la xumeeya ma jirin. yacni dumarka markaas xuquuqooda waxay ahayd high, ma garad. laakiin hadda dumarkii ayagaaba midba midka kale cagsi ku ah, midba midka kale cagsi ku tahay. waxaa laga yaabaa hadda gabadhaasi inay gabar kale soo shirqooshay, ku dhahday nabix meeshaana maanta ballan kale soo shirqooshay. waay aniga gabar walaashay aan u shirqoolayaa? meesha aan jeclahay waa ina qof la jeclaadaa. hadda aniga maanta haddaan wiil saaxiibanahay wax maan sameynayo oo gabar xumeynayo kuma raacayo, waana ka celiya. anigu dhabaraa gabadha haddaad gursan gabadha khayaamin, waxba ku sameyn inaa dhaha weyaan. please hadal badan hama buuxsho, waana awooraa ka horeeyay. gabdhow dantiina garta, dantiina garta, kabacdi dantaana makasoo garanaysaan. laakiin intaad dantiina idin garanaynin marada waxaa maqli jiray dantiis magarta maratuug horte dhamaa. marka warkay kooban ku jiro waxaan idin leeyahay kufsigane wiilashoo kufsiga yareeya. almiina gabadha dakaasha gurso, idinkana gabdhow almiina haddii laga hela shaqaaleynina ninka raaxa, ma garad. asxaabteyda intaasa kusoo gabagabeynaya barnaamijkii, waana idinku dheereeyay maanta. marka wiilashow walaalihiin ha xumeynina, gabdhow idinkana is astura. waxaa kaloo xataa maxay ahayd aan ka iloobay in history yar oon soo xasuustay. maalin baa waddo ayaan marayay kamid ahaa wadooyinka yani Soomaaliya ama especially caasimada kamid ah. waxaa meesha fadhiyay, waxaa laamiga fadhiyay wiil Soomaaliyeed. gabar waxaa soo martay Soomaaliyeed oo xijaaban baa soo martay, oo xijaaban ayaa soo martay, indha shareerna qabto. gabadhaasi gabar bay ahayd. marka wax la hadlay iyo wax kale iyo wax fiiriyay, wax xitaa saa u damada xitaa ma jirin. wiilashii gabadhii bes gabadhii way martay. bal fiiri, ilaahay markuu idin leeyahay xijaabta meesha macno weyn ayaa ku jiro, macno weyn ayaa ku jiro. gabadhii way martay bilaa dhib. tu kale waxaa soo martay yarka xabadda soo martay, oo gorgorad iyo fanaanad iyo khamaar qabtaa soo martay. tiyaa marka maxay sameynayaan wiilasha? waa shaqadooda. marka way fooldeynayaan, marka way fooldeynayaan. maxay ku fooldeeyaan? waa dresska ay qabto. dresskiina haddaad badashaan cid idin fooldeynaysa ma jirto, cid idin haweysanaysa ma jirto. xitaa waa idinka cabsoonaaw. tan baa haa tan wadaad waa naga daaluley, ma garad. adna dana kugu jirto inuu dhaho wadaad waa naga dana kugu jirto. xumaan fara badan yuu kaa difaacaya xijaabka ama asturnaanta. is astura aa badbaadeena gabdhow. wataawaanadeeda waana salaaman tihiin. inta idaawanaysa iyo inta idaawan doonto, inta aan xataa idaawan xataa maasan yihiin oo negative 5 years idaawan doonto. see you kulan dambe oo xiiso leh. salaama min kulli aafa.